aad ugu faraxsanahay iskuulkan dalow oo run ahaantii u helay nasiib maamule aad u qiimo badan inuu ardayda wax soo baro hagana waayo maanta darajada taagan yihiin waxa soo gaarsiiyay maamulahooda iyo macallimiintooda oo haga u yahay maamule Kayse waxaan leeyahay maamule Kayse aad iyo aad baad u mahadsantahay maamule dadaalkaaga halka ka sii wad ardaydana waxaan leeyahay idinkuna waan idin hambalyeynaa marka koobaad waana idin ducaynaynaa ilaaha casaawo jalaha qafar raxiinka waxaan idin weydiinaynaa in dadaalkiina aad keenteen oo idin si laban laabo waxbarashadana mid secretary iyo mid jaamacadeed bay idinku guuleeyo hadhowna ilaahay idin garansiiyo kuwii ku soo noqda deegaankooda in ilaahay idin ka dhigo ardayda kale ee ka dambaysa ee 7ku hogaaminayna waxaan leenahay dawad arkaysaan halka ardaydii ka horeysay martay waxa la idinka rajaynayaa idinkana meel ka sii sareysay ina gaadhaan waalidkana hal mid baan leeyahayo kole waalidka dumar un baa u badane Allah idin barakeeye waxaan leeyahay waalidkana reer dalowow say magaalada u balaarantaan u arko iyo ardayda halkan fadhida isma laha waxaan ka rajaynaynaa inay waalidiintu oo hooyooyinku waliba ay caruurtoodii keenaan goobta waxbarashada maadaama nasiib u hesheen in aad leedihiin iskuul waxbarasho sidoo kale madrasada aad leedihiin sidoo kale madrasadii aad leedihiin waxaan leenahay goob deegaanna aad tidino beeraley ah u badan tihiin waxaan leenahay caruurta keena caruurta anagu mas'uul baan ka nahay laakiin idinkuna waa dhasheen cidii hadhow anfacayaana waa idinka waalidkii iyo dalka anfacayaan marka waxaan idin leenahay caruurta soo saar oo horta marka koobaad caruurta goobaha waxbarashada keena Allah idin barakeeyo sidoo kale waxaan leeyahay rag iyo dumarba reer dalowna tuulooyinku way tartamayaan ama degmooyinku way tartamayaan dadkii waaweynaa ama maxanad ayay waxbarashada aan nasiib u helin ay bartaan waayuhu ka reebay hadda nasiib waxay u helayaan inay helaan waxbarasho marka reer dalow waxaan idinku ballan qaadayaa dumar ahaan iyo rag ahaanba cidii ka faa'iideysanaysa in waxbarasho gelinka dambe halkan la idinka furo non formal education oo dadka waaweyn ay wax ku bartaan marka laba mid un baa noqon doontaan ama waxbarashada waa ka faa'iideysan doontaan ama sida ardayda u lumiseen oo liskarayseen ayaa idinkuna goobtiina aydan u soo xaadiri waayin laakiin waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan insha Allah biidmillaah oo noqon doontaan hooyooyin wax bartay oo ilmahooda ka dheehda ama ka eega buwaagtoodii oo habeenkii ku yiraahdo calalaqan maxaad soo dhigatay maxaa lagu soo dhigay oo taariikhdii bishu intay mareysay garta oo ku yiraahdo war maanta 10 maxaa ku dhacay buugaagan maanta waxba soo ma dhigane oo ardaygii la xisaabtama inaad noqotaan baan rajaynayaa insha Allah biidmillaah anoo hadalka soo koobay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku boorinayaa in aad ku fara adeegtaan idinkoo isku duwan bulsho ahaan macallimiintiina iyo maamulkiinaasba oo waxa weeye bulshada iyadunba wax istarta waxa meel kale uga yimaada waa wax yar bulshooy inaad isku tiirsanaataan oo waalidow inaad caruurtiina iyo macallimiintiinaba aad gacan qabataan oo idinka ka guddi ahaan guddigu iskuulku leeyahay guddidaas waxay role model tahay ama hormood u tahay waa waalidiinta waxa weeye waa guddi matalaysa waalidiinta matalaysa waxa weeye in maxanad ayay aad samaysaan isku xid idinka iyo guddidii ah oo waxbarashadii aad ka qayb qaadataan Allah idin barakeeye waxaan rajaynayaa inaan ka soo qayb gali doono hadii weynuhu qadaro halka maanta ardaydaas ka qalin jabiyeen hooyooyin ka qalin jabiyay aad waxaan u danaynayaa inay hooyooyinku wax bartaan waxaan rajaynayaa hooyooyin wax bartay oo ardaydoodii iyagu isku mar qalin jabinaya insha Allah biidmillaah inay noo dhici doonto hadii weynuhu qadaro ardayda iyo maamulka iyo macallimiintana waxaan leeyahay dadaalka halka ka sii wada. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.